calaamadan kiristaanka oo xaniya taabadka ay wareejinayaan nimankan ma dagaalku rabaa abay inuu bedelo diin dagaal diineed inuu ka dhigo miyuu rabaa dagaal diineed inuu ka dhigo miyuu rabaa awal wuxuu ahaa si oo wax doon oo isku raranahay ahayd hadda diinuu u rabaa jigjiga inta keeno taaladii sayid maxamed ayaa lagu hoos taswiirayaa saliimkii la saaraya waxaan u soo jeedinayaa dawladda Soomaaliya oo ka codsanaya oo federaalka inay encouragement inay dhiirigeliso oo geesinimo geliso awdal state oo ay waxay ku taakulayn karto dhaqaale iyo hub iyo kulli iyo ciidanba la geeyo halkaas waxaan kaloo u soo jeedinayaa inay SSC xoojiso si fiican siyaasiyan ula shaqeyso gobolka Soolba ha ahaado haduu rabo waa dastuurku ogolya oo hoos yimaada dawladda arrimaha gudaha hoos yimaada madax bannaan ba ha ahaado qalad waxa ahayd teeramkii hore Xasan Sheekh hawada Hargeysa laga maamulo xamarna laga maamulo qalad dad buu idin maleeyay niyad Soomaalinimo leh qalad bay ahayd qalad hawadana hal meel baa laga maamulaa muqdisho la yiraa waa dadka beenta u sheeganina waxaan Soomaalida u soo jeedinaya waxaan wada wasaqda badan oo tuugsanaya oo meelaha taagtaagan oo qaar isjiiday oo indhoolayaal ku jiraan oo naagaha iyo isku meesha seexda kaxeeya hadana dhaafadhaya meesha ay deganayaan ha aadeen meel walba waa in laga kaxeeyaa waa in laga kaxeeyaa libis xumadooda iyo fool xumadooda iyo wasaqdooda meeshooda lagu celsho wax laga faa'iidayo iyo wax loo naxariista midna ma galaan iska kaxeeya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa inaan dhowr qodob isdul taago oo xaaladaha geeska Afrika ka jira ah mid ugu horeysa waxa weeye kala hadalka afartan ugu sareysa xukuumadda Itoobiya oo nimba meesha rabo wax u aadayo u waramayo waa siyaasad xumo ayagoo isdhahaya wax qaboojiyo xaaladii dejiya oo isla weynankii iyo muxuu ahaayay santaagii abi oo leeyahay anaga inaan Soomaaliya xoog ku qabsana ma rabno kii kale oo Ridwaan Xuseen sidaas la mid ah oo leeyahay haddana oo leeyahay dekadu waa geedka go'an inaan helnaa laakiin xoog kuma rabna xeel baan ku rabnaa iyo midkii amxaarka ahaayo wasiir ku-xigeenka iyo warkooda waxaan leeyahay warnimayo waad qaldantihiin gobolka Awdal waxa ugu dambeeyay dagaal aad faraha uga gubataan oo linku gumeeyo taariikhdeednaan aqoon dad aan wax baran oo taariikhda baran oo waxba ka warqabin aad tihiin laakiin damac ku jiree niman yahow Oromo orda amxaara wax weydiiya amxaaro wax weydiiya mililiq baa ku duulay gobolkan mililiq baa Saylac rabay ugaas nuur baa u dambeeyay oo Samaroon ahaa oo jabshay oo dhibaato ku sameeyay oo kabiha ka gooyay waxay ka soo jabeen Saylac buraha Saylac markay buraha booraba ku wareegsan ayaa loo galay halkaas lagu jabiyay buurta la yiraahdo Dabshid oo gabilay saaran ayaa difaaca laga galay dib uma soo noqon mililiq kun iyo ma qaano kun iyo 700 iyo mi'aad intaas bay ahayd kun iyo 400 iyo intaas weerar duulaan kala yimid waa jabeen waxa meesha ku nool dadkii Axmed Gurey Amiir Nuur ugaas Nuur dadkiisii ayaa ku nool wali Soomaaliya iyo gabilay iyo muxuu ahaayay gobolka Awdal iyo Saylac iyo Lughaya dadku Muuse Biixi iyo Faysal Cali Waraabe iyo Ramaax iyo Adna iyo oo kala maahan ina kaahiyaaq haddii kuwaas kuwa yihiin muxuu ahaayay raba u dhaca adeer dadkaas meesha ku nool ma ogolaanayaan Soomaaliya intu qof ka nool yahay ma ogolaanayno mana inka kireeyno mana idan siinayno bad aan leenahay haddaad wax kala degaysaan markaan anaga badiheena berbera hadda wax kala degtaan
وأقول هاي أنا وحكي لك oo sida caalamka u wada ganacsan laakiin ogolaamayno naga kiray iyo iga iibi midna ma yeeleen kiray iyo iib wax midna xubno ah inta hadan ka gudbo arrin jigjiga ka socotay ma ana jeclaysan calaamadan kiristaanka oo xaniya taabadka ay wareejinayaan nimankan ma dagaalku rabaa abay inuu bedelo diin dagaal diineed inuu ka dhigo miyuu rabaa dagaal diineed inuu ka dhiga miyuu rabaa awal wuxuu ahaa si oo wax doon ah isku raranahay ahayd hadda diinuu u rabaa jigjiga inta keeno taaladii sayid maxamed ayaa lagu hoos taswiirayaa saliimkii la saaraya kobti taalo saarnayd saliimkii waa la saaraya waa akhlaaq darro waaye wixii dhibaataha ka yimaadana asaga abeeyaa wakiilka ah waxaan wada wajiga xun laho oromadana in laga yeela ma ahayn meesha ku qabsada xafladda banaanka aeroboortka agtiisa in la yiraahay ahayd maxaa talada loola soo aadaya sayid maxamed nin islaami oo la diriraya gaalo ahay taasna waxay u taallaa maamulka jigjiga masaajidka jigjiga roogag loo wadayo lagu celshay banaankana waa qalad saan maqashiisanahay roogag baa laga celiyay magaalada ma roogga maxaa ku yahay roog ma nuclear baa ما قال ملو كسو أنو كسو دقي ما دكتة بربرو كدقة أمرين يا عرب كدقة تواي روق مساجد كلها أنت وحلا باري بالعليا بالليري أيضا أنا ما أقعنو حيت هاي أرنت هداد دين كدقتة هداد ضد كدقتة ورا ديارنا أنها أنك وحول بد ديارنا أنها حنا كمان دحيان أرمو يراجو يأمحارو يدبوب يشقفيضة أو لنا هدي أروران ونرد رتان نقوم أدان وإن كأذقناه وإن كأذقنا أنا وحبا سكان قلي حدد كان كم ذي سنة هاي ومد الدين لبانون هاي رب التقام بان هاي نبي قدر عليه بانون هاي صلى الله عليه وسلم إسلام أهبانون هاي أدوغن الدين لاوات هاي أرايات هاي هلبك عيرين كقعنا أنا إذا برني هلبك عيرين أحمد قريبا سبب وها إن برتانا إنكي ورابوه neefka aad tusi u cuntaan adinka iyo waraabuhu inaad hilibka ceelin wada cuntaan awowgay Axmed Gurey baa in ku kalifay awowgay Amiir Nuur baa in ku kalifay awowgay Ugaas Nuur baa in ku kalifay mana in ka yeelayno wax aad rabtaan si caadi ah u deganaano waxaan Soomaalida u soo jeedinaya waxaan wada wasaqda badan oo tuugsanaya oo meelaha taagtaagan oo qaar isjiiday oo indhoolayaal ku jiraan oo naagaha iyo isku meesha seexda kaxeeya hadana afadhaya meesha ay deganayeen ha aadeen meel walba waa in laga kaxeeyaa waa in laga kaxeeyaa libis xumadooda iyo fool xumadooda iyo wasaqdooda meeshooda ha lagu celsho wax laga faa'iidayo iyo wax loo naxariisto midna ma galaan iska kaxeeya dhaqan xumo bay wadaan dhaqan xumo sida xoolo duurka isku fuulaan iska fogeeya أنت هداك قدبو أمحار حلا واحد شيء حيدها أنك لما قبنه وح أبي وضو لما تشرنه وح أبي وضو قلدا أمحار ذا أو دجال لما يسا وحيدها أنك وكوكري هذا وحيد دي يعني إن أرماه يراس إثيوبيا بدو هلاي إن أرماه حكما بديبيس أيجا بل وحيدهن إله يجو ما أفيق عن أرمضة بل في سؤال ذا يا إله كل شيء كنيسة دودي وحيله إله يجو ما بأفيق عن أرمكم ما بهضلبا أفكا أمحارق يقعنا إله يجو يا أفكا أرمضة ما يقعنا هران كل شيء إني حولها أمحارق أتقانا إني حولها كمتها هاي أرمضة أنا مركا شكستي النقطة أنا هنا نبت قليان ما كاس هنا نبت قليان هدين النبت قليان ويان وحول لك أنا كمان يالان وأنا اسكعلنا هنا أنت هدان كجود عن أسود كذين يا ولا لها معناها لي الرشيق إسحاق وجامعة لأن كنت إسكولة كوا كلا معناها سمينية
waxaan arkayay niman waaweyn oo murmaya oo ku murmaya wax aan lagu murmin oo ku murmaya wax aan laga hadlin oo dadka been u sheegaya waxay moodaan 1950 in la joogo wuxuu ku leeyahay maxamuud xaashi baa hawadayada gaday waxa dhahaya Faysal hawadayada Soomaaliya ku wareejiyay warheede Soomaaliya mid bay ahayd hawadeeduna waa hal warheede hay'ad leeyahay ka waajirta oo qaramada midoobay ka tirsan oo 1940 la yiri muxuu ahaa hawada ha maamusho oo halkaas laga xukumaa ikawa markii la burburay ayada xukumaysa hawada Soomaaliya markii dawladda Soomaaliya dib u soo noqotayna ikawa waa soo wareejisay shirbaan turku u tagnay waa tagteen mid kale turku u tagnay see waa tagteen mid kale xagga u tagnay see waa tagteen miya adinka idin keentay qalad waxa ahayd teeramkii hore Xasan Sheekh hawada Hargeysa laga maamulo xamarna laga maamulo qalad dad buu idin maleeyay niyad Soomaalinimo leh qalad bay ahayd qalad hawadana hal meel baa laga maamulaa muqdisho la yiraa waa dadka beenta ha u sheeganina maxamuud xaashi waxba ma wareejin maxamuud xaashi ikaawa maahan maxamuud xaashi gacanta kuma hayn hawada war dadka macna u sheega war dadka wax gala u sheega war dadka beenta ka daaya war Hargeysa isu soo hartay hadeer waa burciye Hargeysa berbera waxa aad beeninaysaan oo gabdhihii waasheen oo wiilashii waasheen oo dhalinyaradii waasheen oo aad barankii ka dhirginaysaan war ikawa maxamuud xaashi waxba kama qaadan waxna kama iibsan ikawa ayada soo rartay qalabka Soomaalida ee barooweysay taawarkay timid raadeerkay aragtay waa naga casrisan yihiin bay tiri waxa anagu aan haynaba waa ka fiican yihiin waa lagu qancay sidaas ayaa hawadanada nalagu soo wareejiyay sidaas hawada Soomaaliya Muqdisho looga maamulo sidaas aad Muqdisho uga mid tihiin adinku waxa rabtaan isu qaata dadka ka daaya beenta waxaan dhici karinna u sheeginina hawadii Soomaaliland war hawada Soomaaliland waa dhulkii Soomaaliland UN ka qoranta 1960 la qoray Soomaaliland dhulka Soomaaliya waay ma kala maxaa la bixi weydeen oo Soomaaliland ta u tuuri weydeen calankiina waa kii aad saarteen 1960 26 June midkii aad saarteen beerta xurriyadda weeye ee dadka baranka ka daayay calanka buluuga shanta gees lahu ah maxaa u saarteen Soomaaliyoon xoroobin ayaad saarteen calankaas oo afar beer u dhiman tahay ayaad saarteen 1960 kowdii Julayna waxa la saaray meesha la yiraahdo Muqdisho baa la wada saaray jointiga waa kaas hal warqad aan ku wada xoroon warqad labaadna ma keeni kartaan malafna ma lihidin macaada Allah gaari la soo iibsadaa malaf leh macaada Allah guri la dhisanayaa malaf leh macaada Allah dal dhan oo dawlad ahaan jiray oo laba dawlad isku biirtaan oo aan malaf lahayn bal ka warrama bal waxa Hargeysa la taagtaagantii ka warrama bal waxa la cararaysan ka warrama hadeer maamulka awdal state waa caga dhiganaya waana lagu dhawaaqaya dawladda dhaxaana laga xukumaya maamulka SSC oo qaatuma state halkaas laga xukumaya adinkan reer Sheekh Isxaaq baan rabnaa jamla waa diideen in la idan rubciyeeyo hadaa jamla diideen Soomaali jamla ugu imaan weydeen aad ka jeclaydeen muxuu ka jeclaateen oromo urayso inaad raacdo inta Soomaali ku daran lahayd aad ka jeclaa wariyada reer Sheekh Isxaaq ilaahay baan ku dhaarshay meeshii ifartu ku baxay oo baaritaanka dhulka markii la baarayay labada ceel oo shidaalka oo daboolan oo soo saaridoodii kaliya ay dhiman tahay oo lug haya ku yaala ninka yiri oromaan ka kiray kuwa ku raacsan oo siyaasiyiin baan ahaare orayaa maxaa sirta laga hayaa maxay tahay
sirta laga hayaa ii saxiix marka la leeyahay haddii kale dukumiintigaana sii daynaya ama warqadan saxiix nimankan sirta laga hayaa maxay tahay war laba ceel oo qarash ku baxay oo kambani baaray oo inta la raadinayay oo Somaliland leedahay waxa aad sheeganaysan ay leedahay dhulka Soomaaliyeed ku taal sideebaad u kireysaa sideebaad u gadaa waa hantidii shacabka oo resource shacabka weeye xoog baa laga qaatay wax heshiisana ma aadan gelin dukumiintiga laga hayaa waa lagu tusaaleeyay haddii aadan dhiibin wana naga sir naga hayaa be sir naga ma hayo maxaa farmaajo u dhigay geedaha iyo talaal taasaan ka xumaa iyo islaantiisa sama askartii dhimata talaal geedeeda aan filin ka qaadeen doqonnimadii balaqbalaqdii buu nagu arkay annagu yeeli mayno adeer ma yeeleen isla taswiiri mayno lebiskiisa qaadan mayno dharkiisa cad oo calaamada guudan leh naloo labisi maayo dharaan daahirayn ma labisano dad islaama baanu nahay kursi aan daahirayn kuma fariisano dirin aan daahirayn kuma fariisano cad aan daahirayn ma cunno annagu islaam ilaahay baan nahay oo Soomaali la yiraahdo Soomaaliya ah oo la leenu ku jirin oo aan Etoobiyaan dan biday ummadda aad danta bidaysaan waa inay macno leedahay waxaan macno lahayn baad dan bideen waxaan u soo jeedinayaa dawladda Soomaaliya oo ka codsanaya oo federaalka inay encouragement inay dhiirigeliso oo geesinimo geliso awdal state oo ay waxay ku taakulayn karto dhaqaale iyo hub iyo kulli iyo ciidanba la geeyo halkaas waxaan kaloo u soo jeedinayaa inay SSC xoojiso si fiican siyaasiyan ula shaqeyso gobolka Soolba ha ahaado hadduu rabo waa dastuurku ogolya oo hoos yimaada dawladda arrimaha gudaha hoos yimaada madax bannaan ba ha ahaado gobol inuu madax bannaanaado oo hoos tago dastuurka qoray dastuurkan qashinka Itoobiya noo soo minguurisa qoray marka labada gobol isaaqbal ha isfeenta asagu in siday ahaayeen in la dhirigeliyo dawladnimada dawladda kamid yihiin qoondooda ay qaataan muxuu ahaay halkaas laga maamulo riwaayadana laga hoos baxsho oo ayaguna aan wax ogolayn waxna isu ogolayn waxna aan dad u ogolayn hadda inta keenay saraakiil Etoobiyana yiri kaalay noo weerara meesha la yiraahdo haddana Mustafa Cagshar la aado leeyahay Mustafa ciidan nasi Mustafa madiyus ba seenin oo ina adeerkiisa la weerarayo in dadka Soomaaliyeed aniga kuwa ila dhashay waxay degan yihiin Kilin 5 waxay ka tirsan yihiin Kilin 5 anna waxaan ka tirsanaa Soomaaliya meel kastoo joogtaan Soomaaliya waa saas taasna ugu hambalyeynaa maamulka laakiin arinta ay wadaan nimankan Kirishtaanka wada foosho xun loo naaga xun ka oo timaha jareertaale adeero waxa wasaqda jigjiga annaga jigjiga hooseedaba meel in kaara may noqoto meel goorma laga qaata dadkii lahaa jigjig war baxardaar lama geey karo waxaan annaga mashaakilena ma geey karno dhulka ormadana ma geey karno mar haddaan la geey karin si annaga noo qabsanayaan ma kasin aniga marka waxaan leeyahay Soomaaliya meelaha joogtaanba ilaahay hada barakeeyo waxaan sugaynaa bal ninka la yiraahdo Abi Ahmed iyo Muuse Biixi waxaan u mahad celinayaa dawladda Djibouti sida ay muxuu ahaay garab istaaga ugu muujisay dawladda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed horena waa ugu ahayd garab siday qashinka isaga celisay siday muxuu ahaay عندنا دولك أقول لك تري وريا لوك لهل ساس أدبر مهد علنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.